Waxaan wanaagsan daawadayaal idlahantiinba ku soo dhawaada halkan waa raadiyaha TV-ga caalamiga Hammi xaruntiisa magaalada Beledweyne. Qodobada warkiga kuwa ugu doorkaroon waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan Jubbaland oo abaabul dagaal ka wada Jubbada Hoose iyo ciidamo militari ah oo la wareegay goobihii shalay lagu dagaalamay ee magaalada Dhuusamareeb iyo Mareykanka oo iibsaday dhammaan dawadii taalay dunida ee lagula dagaalamayay caabuqa coronavirus. Qodobada iyo hadba qodobadii nagu soo kordho oo fidsan goordhow diyaar garooba. markale isku soo noqod wacan maalinimadu waa Khamiis taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 2 bisha Julaay sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay ciidamo ka tirsan Jubbaland oo abaabul dagaal ka wada Jubbada Hoose. Saraakiisha Jubbaland oo abaabul dagaal ka wada deegaanka Barzanguni ee gobolka Jubbada Hoose. Taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland General Qojar ayaa waxa uu abaabul dagaal oo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab uu ka bilaabay deegaanka Barzanguni ee gobolka Jubbada Hoose. Ujeedka abaabulkan ayaa waxa uu yahay sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saari lahaa deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, iyadoona saraakiisha uu hogaaminayo taliyaha ay tageen saldhigyada ay ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaankaasi. Taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in sababta ay halkani u yimaadeen ay tahay sidii loo xoojin lahaa howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kale, ciidamo militari ah oo la wareegay goobihii lagu dagaalamay shalay magaalada Dhuusamareeb. Wararkii ugu dambeeyay ee aynu ka helayno magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in goobo shalay lagu dagaalamay ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya. Ciidamadan ayaa waxa uu kala qaaday ciidamadii shalay ku dagaalamay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, kuwaasi oo ahaa ciidamo ka kala tirsan kuwa nabad sugidda iyo haramcad. Waxaa hadda lagu soo waramayaa in xaaladda magaalada Dhuusamareeb ay maanta u degan tahay. Ciidamadii dagaalku u dhex marayna la amray inay dib ugu laabtaan xeryahooda. Dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee u dhexeeyay labada ciidan ee ka wada tirsan dowladda ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah, inkasta oo aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijisay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Ugu dambeyn, Mareykanka oo iibsaday dhammaan dawada cudurka corona ee dunida taalay. Mareykanka ayaa iibsaday inta badan daawooyinka cudurka corona ee dunida yaala, sida ay shaaciyeen qaar ka mid ah warbaahinada ugu waaweyn caalamka oo uu ka mid yahay wargeyska The Guardian. Warkani oo ay sidoo kale qoreen New York Post, Al Jazeera iyo Sky News ayaa lagu sheegay in xukuumadda Washington DC ay qaadatay guud ahaan dawooyinkii Remdesivir ee laga heli karay dunida 3 bilood ee soo socota. Dawada Remdesivir waxa ay ka mid tahay 2 dawo oo ilaa hadda la xaqiijiyay in ay la dagaalami karaan cudurka dilaaga ee coronavirus. Waaxda adeega caafimaadka ee Mareykanka oo magaceeda loo soo gaabiyo HHS ayaa Isniintii shaacisay inay gacanta ku soo dhigtay in ka badan 500,000 oo dawada lagu magacaabo Remdesivirka, taasi oo ay kala wareegtay shirkadda dawooyinka samaysa ee lagu magacaabo Gilead. 140,000 oo xabo oo ka mid ah dawadaasi ayaa horey loo soo saaray waana la wada iibiyey. Dawadani oo ah midda koowaad ee la isku waafaqay in ay daweynayso coronavirus ayaa waxaa soo saartay shirkadda Gilead oo keliya. Waxa ay intaasi ku dartay in dawadani laga wada geynayo isbitaalada Mareykanka ilaa iyo bisha Sebtembar. Saaxiibada qiimaha ee qayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaa warkii aad ka daawanayseen raadiyaha TV-ga caalamiga Hammi xaruntiisa magaalada Beledweyne. Warsoo jeediyuhu anigu Jimuni tan iyo warkaan mid lacan intaan dib kaga kulmayno waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo.